wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday heshiis waxbarasho kaasi oo ku saabsanaa sidii dib loogu soo celin lahaa waxbarashada dowladaha Carabta gaar ahaan dowladda Masar oo bixinaysa waxbarashada dugsiga sare ee 15 May waxaana heshiiskaasi nuxurkiisu u ahaa in maamulka gobolka Banaadir uu la wareego maamulidda dugsiga 15 May. heshiiskaasi waxaa wasaaradda waxbarashada u saxiixay agaasimaha guud ee wasaaradda halka maamulka gobolka Banaadirna ay u saxiixday gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda heshiiska iyo dib u soo noolaynta waxbarashada Carabta. ujeedada waxay tahay in maanta aan halkan isku dhaafsiisan aan ku saxiixno aan ku soo gabagabeeno heshiis aan isku waafaqnay annaga iyo gobolka Banaadir kaas oo iskaashi in aan soo celino waxbarashadii thaqaafadda carbeed oo dalkan ma arkaysa waagii hore gaarsiisay meel sare taasina waxaan rabnaa hadda inaan dib u soo noolayno gobolka Banaadir annaga dowladda Soomaalida iyo Masar waxay leeyihiin heshiis ka dhaxeeya labada dowladood oo ah sidii Masarna ay qayb uga qaadan lahayd si loo soo noolayn lahaa thaqaafadda carbeed oo annaga aan ka nahay xubin taasoo ma arkaysa arrin aad muhiim u ah gobolka Banaadir wuxuu nasiib u helay in mar walbana uu nasiib u heli jiray waxa la wixii halkaas ka yimaada in gobolkiisa uu ka bilaabo marka gudoomiyaha gobolkana waxaan isla garanay in aan heshiis samaysano oo waxaan kuu sheegay arrintaasi uu nooga ahaado mas'uul gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriso ayaa tilmaamay in muddada yar oo shaqeynayo dugsiga 15 May ardayda hadda wax ka barata sida lacag la'aantana wax ugu barata ay heleen waxbarasho tayo leh isagoona hoosta ka xariiqay in macallimiinta dowladda Masar ay soo dirtay ardaydaasi ay siinayaan waxbarasho taysan waxaana uu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir la wareegida maamulka gobolka Banaadir uu la wareegay maamulidda dugsiga 15 May waxayna gelinaysaa diilo iyo farxad waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ay kala saxiixanayaan heshiis ah in maamulka iskuulkan 15 May uu gobolku maamuli doono isla markaana macallimiinta masaarida oo runtii u timid wadankan inay soo celiso taariikhdii hore magaalada Muqdisho oo iskuuladii muxuu ahaa macallimiinta masaarida ay dadku ku waxbarayeen Cabdicasiis Ibraahim Axmed TV Universal magaalada Muqdisho.